بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى درسي وحو كساب سيسيهي مشكلة الأمن الغذائي للأمة. dhibta ku saabsiisan isku filaanshiyaha cunnada waan jirin. alasl waxaynu naqaanaa cunnadu inay tahay ghariisa min gharaa'is alinsaan, ama waxyaabaha bini aadamka ilaahay uu ku abuuray, baahiyaha alle subxaanahu wa tacaala waa aadanaha ku abuuray, waana sabab ka mida sababaha ugu weynee biqaa'u ljinsi albashari, in aadanuhu noolaado. ilaahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wamaa jacalnaahum jasadan laa yaakuluuna aطacaam. ilaahay markuu tilmaamaya ambiyada waxaa la yidhi kamaanan yeelin jasad aan cunno cunin, yacni cid waliba inay cunno u baahan tahay baa ilaahay tilmaamayaa aadanaha ka mid ah. hadaagu halkaasuu jooga. amniguna dee waa nicmooyinka ugu waaweyn, waayo cagsigiisoo baqaa ahi waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhaca, bale aakhire ka dhaca. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka marka jannada la tilmaamayo udkhuluuha bisalaamin aaminiin baa la tilmaamaya. xawaaley waxaan u malaynayaa 12 meelood bay qur-aanku soo aroortay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay tilmaamayo. sida awgeed qur-aanku waxa uu inooga warramayaa ahmiyadda ay shucuubta iyo bini aadamka u leedahay cunnadu, bale wuxuu isku xidhayaa amniga iyo nabadda ummadi ay haysato iyo istiqraarka siyaasiga. waxaa la yidhahdaa deganaanshiyaha siyaasadeed ee ummadi leedahay iyabuu isku xidhayaa iyo cunnada. walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa falyacbuduu rabba hada albeyt aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. quraysh markii ilaahay u manno sheeganayay waxaa rabbi leeyahay ha caabudaan rabbiga subxaanahu wa tacaala beytkan leh, kaasoo aladii aطcamahum min juuc gaajo ka quudiyey, wa aamanahum min khawf cabsina ka nabadgeliyey. sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyana may ihmaalin qadiyadda tani, si xooggan bay u tilmaamtay. oo alxayaati alaamina almustaqira, nolosha deggan, wuxuu xadiisku ku tilmaamayaa inay 3 rukun leedahay. 3da rukun ee nolosha deggani inay ka mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. man asbaxa minkum alyowma aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih aw fii badanih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. xadiidka imaamu termedi warinaya, culammaduna saxiixa ku tilmaameen, wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka hoygiisa ama tolkii ama gurigiisii ama qoomkiisa dhex jooga isagoo nabad qaba, nabad haysto aan cabsiyi jirin, jidh ahaanna caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haystaa. yacni qofkani nabad buu haystaa, nabaddii guud ahaaneed oo cabsan maayo, jidh ahaanna nabad kaluu haystaa oo uu caafimaad qaba, bale sheegan maayo iyo xanuuntoona. maalintaana wuxuu cuno ayuu haystaa. kaa adduunka ku soo ururay buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam.
haddaba mas'aladan ay yidhaahdaan mafhuum alamni alqawmi waxaynu nidhi amnigu guud ahaan waa qofku inaanu dareemin cabsi hadaaguna waa waxuu qofka bini aadamku quuto oo uu enerjiga iyo tamartiisa ka helo mafhuumin amni alghadaa'i markaynu idhaahno markaa waxa weeyaan qofku inuu helo cunnadii uu u baahnaa tayo iyo tiraba inuu ka haysto wixii nolosha daruuriga u noqon lahaa ama isku filaanshiiya inuu halkaasi ka joogo ama baahida bini aadamkee dabiiciga ah ee raashin ku saabsiisan inaanu warwar ka haynin waxay yidhahdaan rakaa'ista tiirarka ay ku tiirsantahay waa saddex bay yidhaahdaan wafrat alghadaa hadadu mid la heli karo cunnadu mid la heli kara inay tahy waanay macduum ahayn ka labaadna waxay yidhahdaan waa alqudra shiraa'iya dadku inay iibsan karaan oo ha la helo cunnadiiyo waa gobolka ama dhulka ha taalle inay dadku awood u haystaan inay gadan karaana iyo inay mustamirtay istimraariya inay haysato oo la rajaynayo cabsi aan laga qabin berri ama bisha dambe ama sanadka dambe in la waayayo inaan cabsi laga qabin haadihi rakaa'is athalaatha bay yidhaahdaan waa rakaa'ista alamni alghidaa'i lilumma haddaba cunnadu nabadda qabta waayo bini aadamka maanta jooga xanuunada qaarna waxay dhahaan tacafun buu ka yimaadaa poison jidhka gala ama bakteriyad iyo viruses iyo wax gala inta badan xanuunada waa la daweyn karaa bay yidhaahdaan xanuunada badhna wuxuu ka yimaadaa bay yidhahdaan amraad alistiqlaabiya kuwa yidhaahdaan cunnadaa keena waa xanuunada musminka ee iminka dunida inta badan loo taaglaayay oo wadna xanuunada iyo dhiigkarrada iyo macaanka iyo maxaa la yidhahaa dhagxantan beerka gasha iyo kuwan gala maraarada iyo waxa la sheegaya tirada badan la xanuuna iyaga cunnaa samaysa yacni quality-ga cunnada iyo noocay tahay ayaa sababe maaha wax kaloo dabad kaaga yimi idan in la helo cunno caafimaad qabta iyo awooddii lagu gadan lahaa iyo istimraariyadeeda in la hela rakaa'isu ah baynu nidhi haddaba dunida gaajada ka jirta ma qilatulmawaarid baa ma dunida waxa kor yaalla quudka ah baan aadanaha ku fillayn mise waa su'u tawsiic bini aadamku siduu wax u qaybsadaan cadaalad ku sugnayn labada waa iyama alasna waxaynu leenahay dunida waxa kor saaran ee aadanaha uu ku filan yahay inkastoo aynu ognahay aragtidii wadaadkii ingiriis ee raahibka ahaa ee dad badan oona ay daba socdaan robert malthus markii lahaa dadkaa tiro badanayo dadku si handasiya ayuu tiro badanayaa yacni kow labado afartu saasuu u badanayaa tilmaamayey oo le mawaariduna maba kordhayso markaa wuxuu leeyahay dunida waxay yaallaan dadka ku fillayne aragtiyihiisu aragtiyo cunsuriyo ah dadka badha laga takhallusin weeyaan markaan si kooban u tilmaamo aadanaha dunida ku nool markaa wuxuu arkayaa kawaarista balaayooyinka iyo dagaalada iyo waxa mashaakil dunida ka jira iyo gaajada iyo waxa kani inay tahay naxariis rabbi iyo xagga rabbi uga timi ama naxariis bini aadamku isu naxariisto badh laga takhallusay sida inta kale u noolaato asalku saakiin wuxuu yahay saa qur-aanku tilmaamayo wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi dhulka kan ilaahay baa barakeeyey barakadu waa maxay khayr badan baa dul saaran weeyaan waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala quudkeeda noolaha kor saarane wuxuu cuni lahaana ilaahay baa ku jaangooyey rabbi saasuu qur-aanka ku sheegay walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliila maa tashkuruun ilaahay wuxuu leeyahy dhulka ayaanu idin makan siinay wajacalnaa lakum fiiha macaayish jamcu maciisha waxa ku noolaan lahaydeenna waa idin dul saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee intaa mahadnaqaysaan baa yar wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha
dunida wax daabada wax socdo korkiisa joogaa ma jiro ilaa ya ilaahay baa isku laazimiyay arsaaqdeedii way taallaa walidaalika waxaan leenahay xataa aqoomaha bini aadamku maalan haddaynu ra'yiga maaltoos tilmaamnay bal kuwa ka gedisan ra'yigoodana wax ka tilmaamno الأزمة الغذائية في العالم والوطن العربي نيكا قري محمد خليفة waxau soo naqlinayaa dhulka buu leeyahay inuu ku noolay masaaxadiisu yaabisada inta engegani waa 13.2 bilyan oo hektar inta yaabisada ahi intaa nus ka midi qaabil lizaraaca maaha that means 6 point something ayaa ah waxa qaabil lizaraaca wax laga beeri kara ah inta qaabilka lizaraacaga ahna rubuc ka midi bale rubuc wax ka yara dhaafsiisan 25.7% boqolkiiba 25.7 ahina waa dhul daaqsimeed buu yidhi inta soo hadhay dhulka oo rubuc markaas wax dhimana waxa hadda la beeraa waa 43.5% waa boqolkiiba 3.45 rubicii intaasaa laga beeray saa daraaddeed waxay leeyihiin dhul badan oo la beeran karaa weli baylaha kaasi waa mid culamo kale oo ka mid ah culamada aqoon-yahanada qaar ka mid ah waxay qabaan dhulka aynu ku nool lahay xawaalay 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa bay leeyihiin 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa waliba waa marka la eego bay yidhaahdaan mustawaha nolosha maraykanka ciddii uun aragtay baa aragtaye wax walba 3 laab bay ka cunaan wax kastoo bini aadam liqo yacni koobka sharaabka lagu cabbaa waa mid yar mid dhexe iyo mid weyn dadku ka waaweyn bay cabbaan mid intan la leeg marka wax walba waa koob intaa leeg haddii lagu eego bay yidhaahdeen mustawaha jabaaniiska dad cunno badan maaha mustawaha jabaaniiska haddii lagu eego bay yidhaahdeenna 107 bilyan oo bini aadam u quudin karaa dhulka waxa kor saarayna bay leeyihin yani iyaga aragtidooda waxa weeyaan sida maraykanka haddaynu boobnana buu leeyahay oo qofkii maraykaniba 3.3 jabaaniis u dhigmaa 3 qof iyo waliba dheeraad jabaaniis intay cunaan ayuu cunaa weeyaan haddaynu sida jabaaniiska bini aadamka u quudinana 107 bilyan iminka 7 baa la sheegayaa soo maaha bilyan dunida inay kor saaran yihiin intaasuu quudin karaa bay leeyihiin haddaynu sida maraykanka ka dhignana 47 culamo kale waxay qabaan oo leeyihiin dhulka la islaaxin karo ee dhulbeereed laga dhigi karo wixii uu wakhtigaa dadka quudinaya ixsaayaadkan markay soo saarayeen malaa 5 bilyan meelahaasuu dadku ahaa 10 adcaafiha buu quudin karaa that means waa tiradii waanu tilmaamayna wax ku dhow 50 bilyan oo waliba mustawayaadka sare markay wax u cunayaan bay leeyihiin wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay iftiraadaad cilmiyo kale jiro oo odhanaya waa la ziyaadin karaa masaaxada dhulka ee qaabil lizaraaca oo imika 6.5 ah waa laga ziyaadin karaa oo dicf 2 laab baa la gaadhsiin karaa haddii waxa hadda jirun si fiican loo beerana waxay gaadhi kartaa buu tilmaamayaa 36 bilyan bini aadama in la quudin karo qolo kale oo culamada ka mid ah waxay tilmaamayaan war ilaa 130 bilyan wuu ku filan yahay yastawcib wayuطcim wayakfi bay leeyihin waa qaadayaa dhulku waana quudin karaa waana ku filan yahay si kale haddaynu u tilmaamno waxay leeyihin war dhul beereedkaba maaha dee technology-gu uu horumaray bini aadamku mar kastaba horta abaaraha iyo gaajadu casriga hadda la joogo kuwii ka horreeya ka abaariya gaajo badnaan jiray marka abaariya gaajo la tilmaamo bay leeyihin ee bini aadamkuna bidca malaayiin uu ahaa ayay kaga badnayd laakiin nadariyaha maaltos waxaanay u shaqaynayn bay leeyihin hadda xataa technology-gu wuxuu gaadhay dee in wax la beeri karo iyadoo dhulba lagu ridin imika waxaa ogtihiin
in loo beeri karo biyo iyo chemical quroo la isku daro geedka inta hoosta loo geliyo biyo chemical quro inuu bixi karo aan dhulba lagu ridin oo wadannada qaar hadda wax ku beeraan idan futuuxaadka cilmiga ee ilaahay bini aadamku markay tiradiisu iyo korodhaba futuuxaadka alla u fura waa tiro badan yihiin waagii hore inta hektarka laga soo saari jiray ama 1 hektar oo dhul intuu quudin jiray imka waxa laga yaabaa 10 laabkeed iyo 20 laabkeedba inuu quudin karo hadda farsamooyinka cusub ee technology-ga marka la isticmaalo waxay leeyihiin biyaha wax lagu beerayo mid engineer wuxuu leeyahay waxa bay la mitay waa ka radaaca sinaaciya buu leeyahay soo hooyadu markay ilmaha dhasho haddaan naaskaba la nuujinayo waxaan la walwalaaqa la siiyo dee iska noolaan karaa waa saasoo kale buu leeyahay haddayna dhulkaba wax ku ridina biyaheena iyo chemicalka iskaga ridanno waa la beeri karaa buu leeyahay waa soo bixi karaan sida radaacda sinaaciga oo kale u noqon karaa maxaan weedhaha kan u soo naqlinaya u tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa aragtidan tashaa'umiga ee quusta bini aadamka ku ridaysa ee odhanaysa dadkii baa tiro bato cunnadaa yaraanaysa dunidu way madhanaysaa waxba kama jiraan dadkaa tiro batay dhulkuna waa ku filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii iyo idaaradii iyo xooggii lagu maamulan lahaa adduunka ee wax lagaga soo bixi lahaa haddaba gaajada jirtay dunida dur taalla oo aynu ka mid nahay waxay ku timaadaa bay leeyihin suuء الtasaruf wa tadaalum maamul xumo iyo dulmi bini aadamku isdulminayaa ah sabab almajaaca bay leeyihin si kale haddaan u dhigna bay leeyihin alathra greediness hunguri weyni iyo cadaalad xumo iyo takaaful la'aan cadamu takaamul bini aadamku inuu isdheelitiro takaafulo aanu jirin iyo mawaaridda la haysto si xun loo isticmaalayo wixii la haystay source oo si xun loo isticmaalayo ayaa ah bay leeyihiin asbaabi nudra ee ma aha nudro xaqiiqiyo jirta maaha gaajada iyo baahida jirta kuwan baa sababaye may sababin wax la'aan dhulka korkiisa saarane haddaba waxaan leenahay mafhuumkan la yidhaahdo alamni alghadaa'i haddaynu usoo gudubno in si nabada loo helo wax la cuno waa mafhuum qadiim oo bini aadamku weligiiba uu ka fakerayay imikana shuruux cusub oo xadiida yeeshay ummad kastaa inay tijaabiso isku filaanshiiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay baa looga baahan yahay inkastoo iminka jaa'ixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger العرابي الأمريكي السياسة الخارجية الأمريكية يهودي جدا شيء أركتدي سواها كم ده هيدا وأركيي دول كشدال كهستيه وحكر هذا إنرجي الدنيا ده قبصدين بولاي هاي إننا قرا وحنو باهنا هنا قبصنا بولاي عند الدنيا ده يبين هذا مكوح لقيه سأنو كنترولي كرنه فعلا فقيه استراتيجي عبد الله النفيسي marka uu ka warramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida uu burtuurka ah maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasat al-khaamaat oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khaamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sarreenka labadaas ay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyaga soo saara iyaga suuq geeya iyaga iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyaga haysta iyaga leh waxay kale leeyihiin cunada dunida sarreenkana iyaga gacanta ku idinku waxba beerina la yiri haday beeraana suuqa laga saara annaga idin siirina waxa cuni lahaydeen annaga idin ka iibinayna markaanu doonana annaga ku cuno qabataynayna oo ka joojinayna ilaa intaad baqtiyayso ama aad warkayga u hogaansanaanayso saddex shay oo kale uu tilmaamaya markaas oo hubku ka mid yahay
oo majlis al-amni iyo waxaan United Nations ka la sheegaya ka mid tahay oo ka mid yahay maxay thaqaafa jaamacaadka iyo cilmiga iyo aqoonta iyo technology iyo media iyo waxa daba socda isku soo duuduub waxaan leenahay maanta al-amn al-qawmi ee ummada ay leedahay al-amn al-ghadaa'i wa qadiya istiraatiijiya waa arrin aan kaftanka gelin waa arrin ummad waliba inay si xooggan uga fakarto ay taagan tahay in dunida wax soo saarkeeda bay yidhaahdaan khayraadkeeda dabiiciga ee bini aadamku soo saaray dunida yaalla boqolkiiba 80 waxa bini aadamku soo saaro boqolkiiba 20 bini aadam ka mid ah cuna inta kale waa la gaajaysiiyaa boqolkiiba dhowr iyo 20 milyan 25 milyan wax ka badanina gaajo u dhintaan bay dhahaan isla markan waxay yidhaahdaan khayraadka waddanku uu leeyahay boqolkiiba 5 baa gacanta ku haya waxaan filayaa waliba ihsaayaadkan inay qadiim yihiin inay hadda ka yartay boqolkiiba 90 in ka badanina yani boqolkiiba 90 khayraadkii waddanka 5 baa haysata markaynu soo dhaafno ihsaayaadka iyo wararkaas oo dhan dunida qadiyadda cunnadu waa jawic kalbak yatbacuk eygaaga gaajisay bay yidhaahdaan ha ku dabagale eygu hadduu dhargada iskaga ka tegaya laakiin haddaad u sido salada wuxuu ugu jiraanoo kolbaad wax u tuurayso wuu ku daba soconaya ha hiya siyaasa raashinkee dunida maanta taalla waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qalooc badan bay wadataa oo nabigu muxuu ku tilmaamay kufrigu faqrigu inuu kufri noqdaa buu ku dhow yahay walidalik inxiraafaat bulsheed oo ijtimaaciya ka dhasha bal dawladaha waa loo taliyaa oo kuwa yidhahda man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkan wuxuu cuno isagu haysani go-aankiisa male bay yidhaahdaan go-aanka cidda wax ku siisaa leh waxay tilmaamaan gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyaga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaa is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ee ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana 3 shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsulintaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo istoodhgareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu istoodhgareeyo meel cunno lagu istoodhgareeyaba ma lihin waddanka oo dhammi meel cunno lagu istoodhgareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa
idan meel loogu talagalaba cunno bini aadam in lagu stood gareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda 15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida qaybta labaadna waxay dhahaan waa hidaarka waa dadku siday u daadiyaan wax cunnada la qubo ama tan dusha la iska saaree tirada badan leh cunaan aad u baahnayn haddaad cunto dee waad qubtay dunida waxay yidhaahdaan dad saddexdii qof ee dunida ku noolba mid baa suu taqdiya haysataa bay yidhaahdaan saddex qof oo kastoo dunida korkiisa maraya mid baa cunno xumo haysataa midkan aynu sheegayna cunno xumadu haysato waa labada daraf bay yidhaahdeen midna way ku yaraatay dabeetana wuu u bukaa midna way ku badatay dabeetana wuu u bukaa labadubana way bukaan waa boqolkiiba 30 bini aadamka dhulka kor saaran bay leeyihiin baa suu taqdiya haysataa suu taqdiya haysta waa maxay midna waxaan caafimaad qabin ama aan fiicnayn ama buu isku badiyo cunay dabeetana dhiikar iyo cholesterol iyo sukorow iyo dhagax iyo baliya baas baa galay iyo samna baruur oo waxa la yidhi hadhowna boodbood oo lacag kala bixi oo iska rig inta ku saaran midna gaaj ah haysata idan waxa yaallaa bay leeyihiin saddexda ugu daran ee caalamka saddexaad aynu ka mid nahay yaalla waa imaa inuu marka horeba wax soo saarku liito dadku aanay wax soo saarayn ama inta ka lumaysa wixii ay soo saareen inay tiro badantay ama inta muhadarka ee ihdaarka lagu sameeyey la lumiyey ee noocyadka kale aynu sheegayno loo lumiyey ama qaabka loo isticmaalayo aanu ahayn qaab saxa midalan caalamka carbeed bay yidhaahdaan boqolkiiba 60 biyaha isticmaalaan waa muhadar bay leeyihiin waa si aan caadi ahayn baa loo isticmaalay waa si ka yar baa loo isticmaali kari lahaa saa awgeed waxaan leenahay dunida wax la'aani ma taalo mar kastoo aadanuhu soo bataba ilaahay cilmi u furay mar bay dunidu dhir shidanaysay inagu weli halkaas aynu taagannahay enerjigeenu inuu weli dhiriyey ummadina ma horumarto horumar ummad kama suurtagal aha laba shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummaddii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha weligeen baa aynu soo khudbada soo akhrino sheekayno waxaynu cabnaynu laana xagaynu ku horumarnaa waxaynu shidannaa ama energy aynu isticmaalana waa laanay laa gaas walaa laydh walaa waxba toona weli geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa markaa casrulxajari baad nooshay wakhtigii dhagaxa waxay yidhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen oo ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagaxdii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana daaqa sinaaciya daaqada la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi daaqada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go-aan dee cadceeddu markay dhammaato dee dunidaa dhammaanaysaa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu u furayey taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynine inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu dee weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin casrigii nabaadka geedka la shidayey mushkilat alqadaa waa mushkila taariikhiya waxaana laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaabihii dagaallo badan oo dunida ka dhacay dagaallo dhaqaalay ahaayeen ama siraac tabaqiya ixtikaarkan caalamiga ee cunnada lagu samaynayey isticmaalkii dunida gumaystay wax badani
إلهي قرآن كوحنا لي وفي السماء رزقكم وما توعدون إلهي وابلن قاضي أرزاق ده ضمان الرزق قرآن يا حديث توحينات المامة من الله إلا قبلن قاضي لكن معناه يدو ما التواكل معناه يدو ما اسكفر فريست أرزاق ده ويمان إسايه ما لا يكون قرنتي ما جرته هذا اللي يدرس كفر فدي أرزاق ده هلا يساني ما لا يكون قرنتي ما جرته وحا لينا يدي من أحيا أرضا ميتة فهي له dhul dhintay qofka nooleeya ee wax ka beeray wax ka soo saara innaguna intaynu bannaanadii ilaahay oo dhan weegaaranay ayaynu xataa neefkii daaqayay u diidnay waxna kama soo saarno sharciyan maad mulkinin weligaaba dayr ku wareejiyo dhan anigaas kale waa dayr naf loo macno samaynayo mashaakilka yaalla markaa wuxuu yahay waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa فسادinta la fasahaadiyo ama dhirta ama xoolaha ama nolosha ama waxa kani ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا نوح نبي ينوت المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره جيد متاغو أما الزرع مردولك كمرده وبني آدم معونه أما حولبا معنان أما عدؤون معنتبو نبي قوليه إلا هي الصدقات بيوتي وحاسوا دي رجالين يقفك مسلم كاي إنه وحبير بل وحكوا في الحديث كيو نبغوا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة هذه قيامه حقا كسوسن قرأ ودعوه وقعنت أتكو هاي سجاد تمراد لأبقالي كروه فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها هذا ودو قيامها هنا تكجرسين كرتو حبد داس جيت كايرينات بيرتو بير بو نبغوا لي لذلك بعلماء دو حيد هذان غرسها عباده جيت كبيرستي عبادة ويا إنسان كبيرها يتعبد بالعمل شقدوا إلهي كعابده إلهي شقدوا وقد هذا هذا بقى أيها الأحبة درس جاني وحكو سابسي سيئي إشكالية دتن سيدين لو حليلية لبتن ملقى بحكرة ها odayga aqoon-yahanka ee yuhuudiga ee maraykan ee macruufka ah linguistica ah ee la yidhaha nacum chomsky nin aqoon-yahana siyaasaadka reer galbeedkana ragga ka soo horjeeday leftiiska ah ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay weedh caan oo la yidhaahdo laa yuujad shay ismuhu balad faqiir yuujad faqat nidaamun faashilun fi idaarati mawaarid albalad buu yidhi dunida kama jira buu yidhi dhul la yidhaahdo waa dhul faqiira dunida ma jira buu yidhi ee waxaa jira nidaam faashila oo maamula mawaaridda waxa ay bini aadamku hantiday haystaan nidaam faashil oo maamulo unbaa jira buu leeyahy laakiin waddan faqiiri ma jira buu leeyahy macnaheedu waxa weeyaan aadanuhu gaajada farsamo xumidiisaa keentay ee dhulkiisu ma keenin buu leeyahy dunida kuma yaalla buu leeyahy dhul aan dadkiisu aanay wax cuni karin laakiin systemkay u nool yihiin ayaa ah ka dhibta jira anugu kama warramayo qadiyadda tan technically dee kaa culammada ku takhasustay inooga warrami beeraha iyo saa wax loo beerta iyo saa culammada ku takhasustay laakiin waxaan ka warramayaa xalku taqniga ahi wuu dambeeyaa ee waxa ka horeeya nudrada waxa keena oo dadku inay nabadda cunneed waayaan cunno ku filan in bini aadamku waayo waxa keena siyaasadda waddan uu leeyahay iyo thaqaafada ay haystaan intaan loo tegin masalada tiqniyada iyo cilmiga iyo farsamada loo tegin farsamadu bini aadamku waa wuxuu soo heli karo waana wax la baran karo farsamo kastoo dunida taalla waa la baran karaa waana la soo heli karaa cid taqaana ama waddankaaga gudihiisa ka hel ama
dabadiisa ka soo waa la heli karaa laakiin mushkiladdu waxay ka jirtaa culture-ka bulshadu ay haysato iyo qaab nololeedka ay rabto inay u noolaato iyo siyaasadda maamuleed ee ku saabsan cunnada waddanka dadku siduu wuxuu cuno u heli lahaa siyaasadooda maamulkooda sare uu leeyahay marka siyaasadda maamulka sare uu leeyahay ka warramayo dad badan waxaa laga yaabaa inay dowladda markaa meesha joogta iyo mucaaradka ka soo horjeedo oo yidhaahda dowladdan wartaa kama warramayo waa iliidkeenoo dhammi siduu rumaysan yahay ama kuwa hadda jooga ha noqdaan kuwa soo socda ha noqdaan kuwii sii tegaya ka sii baxay ha ahaadaan kuwii inoo soo bilaabay isku kee wada dar maaha kuwa hadda jooga waxaynu emphasize-ka saaraynaa waa iliidkeenna waxaynu ka warramaynaa dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribad qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo culture-ka dadku rumaysan yahay ayaa ah caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo o dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo buletinada dowladdu soo saarto maalan waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii waa buletin dowladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo darsin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey dabeetana waxaan arkay Jabuuti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay waddankan dhana beedkii u cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Ethiopia ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdaa iman jirayoo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma waddan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonayaa taanigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan un baan koo 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu ku idhi China ma intaasoo 1 kiiloomitir bay inoo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mid ah lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائياتك الدولة الصوصار طيب أنا جاي بلغات كهذا اللي ينوكينه
markaan ixsaa'iyaadkan ka warramayo kama warramayo wixii suuq madow lagu keeno kama warramayo waxaynu qiimaha intaynu dawladda been u sheegno oo aynu si kale u soo dhaafino ama wixii cashuur dhaafka aynu ku keennay ama wixii xuduudaha tirada badan leh ka soo galay waxaan ka warramayaa qaadka qure ka soo gala maxay galbeed ka soo gala ee halka lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunnay 19 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 19 milyan 450 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunnay oo Itoobiya laga keenay waxa meesha intaasi waa intay dawladdu cashuurtay laakiin dee xuduudda dheer waa taqaaniin ilaa halka ka soo gala qaad meel walba baadiyo dhan buu gobollada baroo dhan buu tagaa meel kastuu tagaa waa Soomaali weyna kama warramayna waa intan yar aynu joogno ayaan ka warramaynaa ayaa uu soo galay 19 milyan oo kiilo 6 bilood la cunay how much ba ku baxay idan mushkiladani maaha mushkilad yar dadku say u sawirayaan ma haddaan akhriyo dhaatada halkan ku qoran ee ay dawladdu soo saartay waad cajabi lahayd dadka waxaa cunaya GDP-gan waa imisa wax soo saarka waddankuba waa imisa 2002 World Bank iyo dawladdu waxay soo wada saareen inuu ahaa 1.4 billion wax soo saarkeenuba kuwa hadda ugu badiyaa waxay yidhaahdaan 2 billion laakiin masaadir waliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dawladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa intaa waxay sheegayaan ixsaa'iyaadka qaarkood cajsiga مثلا ixsaa'iyaadda hore dawladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeenna waxaynu soo dhoofsanayo waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay almost waa 5 nus bilyan deficit aynu ku jirnaa lacag ku dhadhow say tilmaamayaan taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkan iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxa ku qiyaasaan qofkiiba $347 ba sanadka dhan kugu soo hagaagaya dad minis maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo ixsaa'iyaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka 3 baa iraga sii dambeeya iyana baktiyay waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi 3daas ay naga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180aad baynu nahay waddanka 180aad dad minis 179 waddan baa inaga horeeya runtii ixsaa'iyaadkan ama dawladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba maaha Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qura agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano مثلا boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tubaakadaynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tubaakadaynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tubaakada la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tubaakada la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo
ITC 2018 waxay soo saartay. أيها الأحبة iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaan aynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow u shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay waaxid min kulli halaathana suu taqdiya buu ka caban doonaa reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doonaa kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way kasii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda wadanku uu leeyahay waa mashaakil cultural oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aad u yariyay intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambana aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ha الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يوحصو صار كله كردية وعبادة بيرها كان يوحل بيرية والنوع من العبادة دوقفوه تلقلو كالجر كاينو نولي أما سي قلدن وحلو عنايا أما وح قلدن لعنايين وحلقا بدلنا والزهد بولي waxaan u baahnay inuu tiro badan leenaad isku gurin waxyaabaha intaajka is hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay faqarada iyo kuwa waxaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo waxbixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mida khubarada waaweyn ee brofesorada waa candhiga laakiin wuxuu leeyahay systemka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa system islaamiya laakiin systemka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan beriiskaa soo daadanaye kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedello dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad leh inaynu noqonno taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaat alamni alghidaa'i baadhitaan ku sameeya innaga aqoontaynu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeenna maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh dee sheega business management maxaa businessaynaysaa gaaja u baktayaysaa yani inay wax soo saar la xoojiyo waa mid ka labaadna waa qadiyatu takhtiit buu leeyahay mustaqbalka siyaasadda dowladda iyo ururada madaxa bannaan iyo bulsho weyntu inay yeelato khita mustaqbali oo ah dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen innaga khitadeenna waa maxay
وهيئاتكو دنيا هالنسوق قاعدانيو سواء كان معها dawladdu NGO-yada ha ogolaato NGO-yo badan hala keenay war waxaas dadka sii gaajaysiiya beled ku dhargay lama sheegin qoladan cadada meelahan maraysa waxay wadaan dunida wadan intay tageen dhargay lama hayo faqrun baa la sii qaadaa waa kuwa afartii neef ay dhaqan jireen inta ka soo ururiyeen buulasha u ageeray yiri waxba la idinku siinaya gaajada ay beeraan walidaalika waa axadhum baa qoray book la yiraahdo maxay صناعة الجوع بقري مدي بوق لا يرادو قاچada sameynteeda sida gaajada dunida loo abuuro ka waramaya iyaga maagameyno de waxaynu leenahay leema sitaanay waxoodii bay sitaan Soomaha hada qaar baa yiraahdo way inagu dulcunay oo muxuu ku dulcunay in adeerkii mu ka soo qaatay waxoodii bay sitaanay waxaad uga hadleeday basito waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu inagu wax la soo baxno ninbaa wax soo qaato cunaya war maaha waxaynu u baahanay waa maxay waa inaynu inagu keena kan wax kala soo baxno inaynu takhtiid sameynaa baynu u baahanay hadda daraaso kooban lagu sameeyo fi suurati yusuf qisatu nabiyullaahi yusuf waa min axsan alqisas fi alqur'aan waa qiso runtii adab leh oo cilmi leh oo akhlaaq leh oo bulsho leh oo fan kastoo cilmiyo laga warramo ka warramaysa qisadaasi nabi yuusuf waxa ka mid ah riyadii ugu dambeeyay oo xabsiga ka soo saartay riyadii ugu dambeysay oo xabsiga ka soo baxay yuusuf ayuha sidiiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un cijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun illa yalaga gaaray wa fihi ya'sirun قصدا إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تد بيلهيد بيلي أو حكا ورميا سيدا وحلوك كيديو عناد الله كيد صدو إيو إنتاجك سيدا الله في عنيسيو إيو استهلاكه سيدا الله ترشيديو أيوكا ورميسا قصد waxay ka waramaysaa 7 sanadood wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka waxay ka waramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu gali lahaa waxay ka waramaysaa waxa la cunayo istihlaaka sida loo tarshiidin lahaa si xun loogu falaadeen inaga marka caanu bataana wala qubi jiray marka jiilaalkana waa la gaajoon jiray sax ka ma ahay yani waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayay farsamo garan waayay u kaydiyaan yani caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafan kolba biyuhu laga shubo oo faarkoo qura la reebo faarku waa caana boodhe dabeetana way wadhaan carabtiyo way engejiyaan aqadkay sheegaan waa kaa ana geelena caadiga la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo uu karuuro kolba biyaha un laga daadiyo karuurka soo hadha la faarka futkiya faarka soo hadha la wado oo la engejiyo dabeetana haama lagu cabaysto caana boodhu noqon lahaa hadhow biyuun baa lagu dari lahaa laakiin dadku haddii aqoontu ay baabaha noqoto documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan weligaa ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo intay hasha farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashi markii dambe yani bini aadamku aqoontu is dheeriyay bini aadamku sida awgeed nabiyullaahi yuusuf qisadiisu waxay tilmaamaysaa sidii wax loo kaydsan lahaa iyo sidii wax loo beeran lahaa iyo istihlaakaasi sidii loo irshaadin lahaa ee si fiican bini aadamku ugu isticmaali lahaa alamni alghadaa'i markaa waa qadiyad la maamuli karo runtii wax badan oo aan soo qoray waa hayaa laakiin wakhtigu salaaddii waa gaadhay waxaan rabaa inaan war ku soo koobo dunidu loolan bay ku jiraan
loolanka ay ku jirto duniduna say u noolaan lahayn bay u noolamayaan bini aadamkuna baryo kuma dhergo dowladnimana kuma dhisanto waxaynu u baahannahay bulsho ahaan culture-keenna inaynu wax ka bedello dowlad ahaanna siyaasaadkeenna oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello wax dad dhul intaa leeg haysta oo roob u da'o oo gaajoonaya ceeb weeyaan dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan waa ceeb runtii maha wax laga warrami karo waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa ixsaa'iyaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay waayo waa ceeb ummad wax haysatoo baahan oo wax kastoo ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa xataa waxaynu cunno waxa ugu badnaan jiray canjeelo waxay maraysaa canjeelada wixii laga samaynay in dabad laga keeno waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhiganno daqiiq cad iyo bariis iyo baasto saddexduba sumtooda ay ka badantay waxtarkooda caafimaad lahayn wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro ma soo saarno haddaynu soo saarnana dee farsamaynaan u garanayn xataa bariiska waa layna baray saa loo isku dhex kariskareeyo wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go-aynin markaad cunto laakiin waynaan garanaynin innagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha hilib cad ku rid bariis ku rid baasta ku rid oo biyo la kariyey waayo waa qondaro yani soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda ka mid ah bay yidhaahdaan waa min afqar innaas kijadooda ay faqiirtay maaha wax la cunaa inaanay oolin waa wax la sameeyaan la garanaynin waayo cidna wax lama barin marka ayuha alxiba innaga gaaja inama haysee farsamo xumaa ina haysa aan dib u fakarno wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbi wasallam